دقاق مهاميرا ودق ما أواميرتا دخاتير توي ناسيسي الله هينا دوري waa fariimo caafimaad oo ku saabsan ka hortagga cudurka coronavirus. magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar waxaa maanta ka kala baxay tiimamka kala duwan ee dhanka wacyigelinta xanuunka coronavirus kuwaasi oo ay soo direen guddiga heer qaran ee wacyigelinta iyo ka hortagga xanuunka COVID-19. tiimamkan oo gaaraya ilaa 2 tiim ayaa waxay muddo 7 ay ka shaqayn doonaan bulshada gobolka Saraarna ka wacyigelin doonaan siyaabaha ugu habboon ee looga hortagi karo la iskaga ilaalin karo xanuunka coronavirus oo farabadan ku haya guud ahaanba caalamka. munaasabadii lagu kala diray waxa halkaasi ka hadlay isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar isduwaha warfaafinta madaxa wacyigelinta wasaaradda caafimaadka gobolka iyo barasaabka gobolka Saraar waxayna la dardaarmeen tiimamka kala duwan ee ka qayb qaadanaya hawsha wacyigelinta xanuunka coronavirus. halkan waxaanu isugu nimay inaanu diro labadii tiim ee wacyigelinta ee gobolka Saraar tiimka waxaanu faraynaa inay insha Allah bidnaa karim si wacan u gutaan sida ugu habboon uu farayo qodobada caafimaadku ay farayaan baan doonaynaa insha Allah bidnaa karim inay u gutaan dadka bulshada ku dhaqan gobolka Saraarna waxaanu ka codsanaynaa inay ka faa'iideystaan wacyigelinta oo ay fuliyaan wixii awaamiiraha la siiyo. bismillaahir rahmaanir rahiim sida uu ka dhawaajiyay isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saraar maxamed suudi waxaan maanta doonaynaa inaan hawlgelino labadii tiim ee caafimaadka ee ka shaqeynayay wacyigelinta ka hortagga cudurka coronavirus. labadii gaari iyo agabkii loogu talagalay way soo gaareen waxaan bilaabaynaa shaqadii insha Allah waxaan ku rajoonaynaa inaanu hard to reach area-dii loogu talagalay ee targetku oo ahaa in aanu gaadhno sida ugu fiican ee ugu macquulsan. waxaa noo sharafa in maanta anagoo fulinayna guddiga amarka ka soo baxay guddiga heer qaran ee wacyigelinta iyo ka hortagga xanuunka coronavirus ee heer qaran waxaan maanta magaalada Caynaba ku kala diranay iyadoo Gudomiyaha gobolka Saraar uu nagu hogaaminayo labadii tiim ee lagu talagalay inay ka shaqeeyaan wacyigelinta xanuunka coronavirus ee gobolka Saraar lagu talagalay iyadoo ka qayb qaadanayaan maamulka gobolka lagu hogaaminayo barasaabku isla markaasna wasaaradda caafimaadku iyo wasaaradda warfaafintuna ay maxay tahay ka shaqeynaysaa hawsha fulinayso gaadiidka oo ku halka taagan iyo shaqaalihiba maanta ay kala baxayaan runtii waxaan rajaynaynaa in muddada dhowrka cishaha ay socoto wacyigelintani dadka ku dhaqan gobolka Saraar badankooda aan ku gaari doono sidii aan u fahansiin lahayn uga wacyigelin lahayn dhibaatada xanuunkan leeyahay iyo sida loogu baahan yahay in laga hortago maadaama xanuunkan aan lahayn daaweyn ay leeyahay ka hortag. halkan maanta waxaa ka ambabaxaya tiimkii wacyigelinta ahaa oo ka kooban 2 qof oo wasaaradda caafimaadka ah iyo 2 qof oo wasaaradda warfaafinta ah 4 qof iyo madaxa wacyigelinta oo la shaqeyn doona tiimkaas labadii baabuur ee la soo diray ee xaggan laga soo diray way soo gaareen inkastoo ay ka habboonayd halkanba waxa jooga gawaari GT-ya oo dawladdu leedahay inta shidaal Hargeysa ay ka soo kharash gareynayaan halkanba in laga diro ayaa horta ka sii habboonayd waxba se ma laha oo iminka way yimaadeen taa wasaaradda gaadiidka ayuunbaa kuwana maamushay maamulkooda wax dambe haddii loo baahdo saasay u dhigi doontaa haddii la hayraa oo GT-ga gobolka joogta in lagaga shaqaysiiyo marka loo baahdo gobolka dhexdiisa ayay noqon doontaa insha Allah. idinka waxaan idin farayaa tiimkan saa ka baxaya inaad gobolka dhammaantii ku fargaraysaan 5 cisho ee la idin soo cayimay guri u gashaan wixii dadka faraysaan ee wacyigelina aad si wanaagsan u farsaan oo warka gaarsiisaan wixii agaba qaybisaan insha Allah soo noqodkiina iyo war fiican iyo wacyigelinta dadkooda gaadhay ayaan rajaynaynaa.